cuntada ayna hadda waxay u badan tahay wax Ingiriis ku dhaw western diet cuntada fast food kala dhaho saliidda badan dufanka badan caloosha caafimaad fiican aan u lahayn Australia hadda kansarada ugu badan waxa way kansarka maqaarka wax banaanka ka yimaada kansar uu keeni kara taas miitaal way say Soomaalidu u fahmayaan ana waan ka saa waxa waa stage 1 waxay aaminsan yihiin kii ugu fiicnaa yahay afarna kii kama dambeystay laakiin taayada qalad waa in saa loo fahmo sabalka gala boqolkiiba 80 waxa keena sigaarka aad duuqays afka boog kaaga soo baxdo tawaakada oo kale way keentay iyadana infection yaal oo waxa jiraan beerka kala jiraan marka ilbay kugu dhacday wallahi shaytaan iska saara dabeel waa iska saara Soomaalida way aaminsan yihiin marmar dabeel marmar isha taas kulay fatwa ahaan qof ugu dhaamoo jira islaamiyan waxay ka leedahay naasku ka soo bixi karaa dhuuntu ka soo bixi karaa maskaxdu ka soo bixi karaa sanka gadaashiisu ka soo bixi karaa afku ka soo bixi karaa xibin oo kansar ka soo bixi kara malaha jirka lafta naftinkooda dhiigan oo aabo labada weyn Kenya number 3 ee soo galaysa xarunta Afrika marka la kansarka sidii markaysa qalabkiisa iyo dhakhtarkiisa iyo caasimashada la maray bukaano badan markaysa family-gooda ka socdaan saada waa laga naxay ha u sheegan baa lagu dhahaa marka ani laba shay baan suubiyaa mar aan ka ogolaanayo haye uma sheegan aan dhahay iyo mar aan ka ogolaanin jirto Soomaalida dhaqan ahaan ka hortag iyo isbitaal la aada iyo caafimaadkaada la socdo iyo jirkaada isbedelayo waxa markaysa laga soo fahmo horta dhaqan nooma ah I think inaan taas inaan bedelno waa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا مهدي شو وحاجة برتين إنه كبح اللغة الإنجليزية لكن ما تسكت دون يا لودا دين دونا أنا أقول جديد هاي موضوع ما أنت لقى حد حساسين مديسة إيو ما رتي تذكر أن سو مالك أي أفرين تنقص عطا وأرين أن ربا إني آدي مارتي لودا جيستو سيدا أكتيهين قوس والب أما عد والب qof ayaa maartay caabuqa kansarka uu ka haya maalin walba lacag baa la guraa dadka India baa la geeyaa bariyahana sida aragteen aad iyo aad ayuu nagu soo batay cudurka kansarka maanta waxaan rabnaa in waxaan la joogo khabiir oo noo sheegi doona waxyaalaha laga yaabo inay ay keento cudurkan kansarka ama waxyaalaha rabo in laga waantoobo ama waxyaalaha maartay la isdhihi karo ayaa sabab u ah macnaha bir hore سان أوجن هاي عذر كان آد مارتي ومو بدنين لكن بريان حد أركيسا حدو أديك وهايين عدك وجود جنا مدرس كا أما قرابة سيس يوحيا سؤال سويدين لما حوي واي وبريان سببته بريان وآد نوصل بطي عذر كان ساقي وحمانت نصيب ويالناي إن لفريسنا دكتور عمر عبد الحميد أو clinical oncologist oo kamid yahay labada qof oo Soomaaliyeed oo ku takhasusay dhinaca kansarka iyo research-kiisa Dr. Umar ku soo dhaw barnaamijka Mahdi Show su'aashii kood waxa waaye Umar Abdi Xamiid uu yahay Bismillahir Rahmanir Rahiim Ali Mahdi aad u mahadsan tahay maanta aad ugu sharaftay in showgaadan oo Mahdi Show magacayga Umar Abdi Xamiid waaye takhtarka kansarka ayaan yahay ku takhasusay waxaana ka howlgalaa Nairobi xarunta Garis oo iyadana qaybta ugu weyneed oo gobolka waqooyi bari kansarka xarunta ugu weyn aniga ka shaqeeya marka kansarka waa arrin qof walba isweydiinaya muxuu bariyahan u soo batay maxaa laga qaadaa see lagu daaweeyaa Kenya ma lagu daaweyn karaa meeqa qof ayaa u dhimata maalintii cudurka kansarada way badan yihiin midka Kenya ugu badan su'aalada kudi iyo wixii kale oo faahfaahin dheeraad oo maanta looga baahan yahay kansarka insha Allah ayaan kudi wada falanqeyn doonaa waa maasante Umar doctor su'aasha koowaad ku weydiinaya waxa weeye sida ognahay taariikhda ka soo fiirina xilliye hore maqalka ama maartay saameynta cudurka kansarka aad buu yaraa bariyahan bishi gudaheed waxa laga yaabaa inaan 1 case ama 2 case oo family gudaheed oo laga yaabaa inaad maartay oo lacag loo aruuriyo ama India la geeyo maxaas dhihi kartaa uu sababaya bariyahan soo badasho soo batay cudurkan oo qoys walba ama cid walba bariyahan laga helo sidii hadii loo fiiriyo xilliga hore waa su'aal wanaagsan cudurka aad baa bariyahan looga hadlaa qof walbana waa markaysa waa ka hadlaa family walba oo ka hadlaa saad arab oo dhawaajisay kansarka waligiis uu jira wax hadda cusub ma cudur waligiis jira waa had jira Soomaalida maxay ka fahansan tahay muxuuna yahay suun u saameeyaa
lama ogeen aadna looma falanqeyn jirin waxyaalaha hadda uu egay inuu usoo batay aniga sida cilmigay khibradayda ma aha inuu cudurkii hal mar inuu kor u batay dadkii uu ku dhacay laakiin taasna way noqon kartaa laakiin mid aniga aaminsan yahay ma aha mid aniga aaminsan yahay waxa waaye cudurkii isbitaaladii baa bateen dadkii baa miyiga ka soo guro magaalka la soo degay isbitaaladii baa la aadaa takhtariintii baa la aadaa xarumooyinkii oo xarunyaalka oo kansarada ayaa bateen khibradii iyo cilmigii lagu baari lahaa ayaa kor u kacay marka kuwaas daraaddeed waxay keenaysaa hal mar nambarada inay kor u bataan laakiin ma aha ma aragtay inay waagii hore weligiis u jiri jirin midda kale waagii hore awowyaashaan eeyayaashaan waqtigoodii cudurkii inuu yaraa ee dadka ka dhacdhacsan haddii waqtigaasna isbitaal wax aadi jiray ayaaba yarba boog aan bogsanin boog iyo kud baa ku dhacay wax baa laga jaray waa la gubi jiray xanuun dhuunqabad buu dhintay waxaas baa la dhihi jiray marka hadda maadaama isbitaalkii la aaday wixii haddii isbitaal dadka wax un baa lagugu sheegay sooma marmar qaarkood isbitaalka waxaan loo aadinay ka mid tahay marka saa daraaddeed ayaa nambaradii inay kor ugu kacayaan ay u eg tahay taa ka sokow sida runta waagi horen inuu yaraa way u eg tahay oo hadda u badanahaya waxaa ka mid ah nolosha isbedeshay cimiladii isbedeleen cunnada aan cunno way isbedeshay awowyaashan iyo awowyaashood waxay cunnada ay cuni jireen ma cunno cuntadaana hadda waxay u badan tahay waxa ingiriiska lagu dhaho western diet oo cuntada ma aragtay oo galbeedka cuntada fast foodka la dhaho saliidda badan oo ma arkaysaa oo dufanka badan caloosha caafimaad fiican aan u lahayn cuntadii oo harka aan shiidmayno jirka ku daahaysa fruitski iyo ma arkaysaa iyo faakihaadkii la cuni jiray oo ma arkaysaa oo yaraadeen marka iyo cuntadii oo normalka ahayd oo masagadii iyo wixii alla aqaanay oo jirkii weligiis lagu noolaa hilibkii iyo arigii wixii la cuni jiray caanihii ayaaba yaraanayaan dadkaad waxay u badan yihiin magaalo jooga loo badan yahay cuntada magaaladana la bartay taa iyadana jirka saameyn weyn bay u keentaa hadday kansar keenayn cudurro kale bay keentaa dadka taankoodii baa ku darsamay waad ogaan kartaa inta qof oo hadda tankooda la dagaalayaan jirkooda kiilahoodii baa kor ku darsamay taasna waxay u furaysaa irid cudurro badan kansarka laxma sokorta ka mid ah pressureka ka mid ah marka adiga waqtigan la jooga iyo waqtigii 100 sano ka hore run waay cudurku isku mid ma aha laakiin waqtiga isbedelay kilax ma aha waa cuntadii isbedeshay dadkii guuraagii isu bedelay reer magaalo ma arkaysaa cimiladii isbedeleen iyo jirkii isbedelay intaba qayb bay ka qaadataa kansarkan soo badanaya su'aasha labaad aan ku weydiinayo waxa weeye doctor research ana waa tahay xagga ku takhasusay dhinaca kansarka researchkii badan oo lasoo qaaday iyo falanqaynta lasoo suubiyey iyo baaritaanka lasoo suubiyey ma is dhihi kartaa waxyaalo oo maanta waxyaalo oo ayaa jiraan la kasaayo ayaa jiraan oona keena kansarka ama weli waa lagu wareersan yaho weli waxaa laleeyahay kansarka meel uu nooga imaaday qaar baa ku dhahay hawaar waaye qaar waxaa ku dhahay il waaye soomaalida waxyaalo badan bay u sheegtaa laakiin research la qaaday research oo scientifically oo noo sheegi kara baaritaanka lasoo qaaday oo la dhahay kansarka waxaa keena arrimahana keena ma jiraan wuu jiraa waana arinta oo aad looga daadihiya meel kasta oo wadamada horumareen khibrigooda u fiican yahay oo dadkooda shaybaarka ku dheereeyaan Afrika xoogoo dib aan u yara dambeynaa inkastoo data badan iyo information badan kansarka Afrikaanka ku dhaca oo hadda tawsiib badanaya laakiin adduun weynaha marka la fiiriyo waxa takhtar walba kansar ku takhasusay ama kansar wax ka baara marka weydii 3 shay oo buu sheegay ama wuxuu ku dhihi cunnada sida daar aan sheegay lifestyle ku xal ingiriiska lagu dhaco cunnadii iyo jirkaadii iyo habka u noolada isbedeshay ala hadan ka hadlada miisaal hadan ka hadla cudurka sanbabka gala 80% waxa keena sigaarka aad dhuuqayso ama afka boog kaaga soo baxdo oo ma arkaysa tawaakada oo kale way keentaa iyadana adduun weynaha tobacco waa la garanaa inay ma arkaysa xiriirka ay leeyihiin iyada iyo kansarka sigaarka sidoo oo kale waa la kana infectionyal oo waxa jiraan kuwan Soomaalida ay taqaano laga daaweeyo kaadada ma aha infectionyal beerka gala jiraan cagaar showga oo kale indhaha cagaar ku noqonaayeen taa wax laga qaban waayo kansar oo soo bedela marka infection qayb uu ka kaleeyahay cunnadii isbedeshay iyo cimilada isbedelayna qayb uu kaleeyahay inta kalena nasabkana iyadana way soo gashaa inkastoo ay tahay qayb yar
aad u badneen macnaha cudurro waxaa jira nasab loo leeyahay oo aabaha ama hooyada oo kale cudurka naaska hadduu ku dhacay ama uqbaansidaha sida kuwa la dhaho ovary cancer uu ku dhacay waxaa laga yaaba gabadheedii ama gabadheeda labaad inay halis u leedahay halista haba yaraatee marka in laga baaro iyadana iska fiican tahay calaamooyin lamid ay soo darsaan marka haddaan soo gaabiyo waxaa waaye cunadii oo isbedeshay lifestyle-kii iyo habka loo nool yahay waddamadii oo hadda ma arkaysaa dhaqankii kor u kacahayo pollutionkii iyo hawadii oo nadiif ahayn iyo waxyaalo badan oo ma arkaysaa sida Europe iyo qaaradaha kale ay 60 sano soo dhaafna waqtigay marayeen oo industrializationka la iyadan wax weyn bay ka qaata cunadii ay isbedelaysaa cunada nadiif ma aha si degdeg baa loo hagaajiyaa nutrient-ka ay qabi jirto ma qabto waxyaalo badan ka mid ah midda kalena hadii waa nasabka iyo midda afraadna waxaa hadii ma garanayno garashadaasna waana wax laga xishoona maaha ilmi noqon karta marka ilba kugu dhacday wallahi shaytaan iska saara dabeel waa iska saara Soomaalida way aaminsan yihiin marmar dabeel marmar isha taas kulay fatwa ahaan qof ugu dhaamo jira islaamiyan waxay ka leedahay laakiin cudur walba ilaaha keena wuxuu ku imaaday anaga tan cilmiga aan naqaan u baan sheegi karaa laakiin il kugu dhacday ama marka sixirka iyo waxaas waa la sheegaa laakiin kulli cilmi baaristeeda aniga ma aqaana bal waxa aaminsan in muslim hadaan yahay wax walba uu ku dhaca si kala ilaahay uu kugu sawaabi karaa mardaxaasa aad cudurkan kansarka ma aad ugu soo batay qowmiyadan Turkaanada oo xagga joogan baaritaan badan baa la suubiyay maxaa la ogaaday meesha ay amboogada ka gataan iyo qudaarta inay tahay Meru County oo marka dalsi fiirin la arkay inay daawo badan ay ku isticmaalaan xagga beeraha mar soo saarka qudaarta dhulkii oo markaas oo la soo bixin in daawo lagu dhufto marka mirti la geliyo lagu dhufto markuu soo yarkaa lagu dhufto ilaa laga goyna inta uu daawo lagu wado soo dadkii baaritaanka badan la suubiyay maxaa la ogaaday inay maarta cuntada kiimikaalka badan qudaarta maartay fertilization farad badan aan isticmaalno inay sababtay ma laga yaabaa cunadana cunayna oo anaga aan soo saarin oo meelaha kale kor ka imaadan inay sabab u tahay waa anaga waxa ma soo saaro xagga qudaarta waa arrin suurtagal kansarka waxaa kaloo ka imaada laba shay ma jirkaada gudihiisa wax ka dhacay ayaa kansarka keeni kara ama wax banaanka ka imaada wax banaanka ka imaada waxaa kamid ah qorraxdaas hadda fiiris ugu dhacday inkastoo Afrikaanka dadka madowga ku yar yahay cadaanka qorraxda wadanka Australia hadda kansarada ugu badan waxaa weeye kansarka maqaarka waa maxaa la cadceedaas iyo badda qarkeeda ay saaxanaayeen cadceedii ku dhacaysa jirki intaas oo sano oo ku celcelis ah kansarka wax banaanka ka imaada kansar uu keeni kara taas mithaal waa midda kale cunada kamid ah wixii jirkaada soo dhaxgala oo aad jirka kale aad u keentay cuntada kamid ah cuntada marka waaga hore cunto nadiif waa la cuni jiray hadda waa hadii waqtiga ku saamaxayni dadkii abatay gaajada baa laga cararaya cuntada process badan oo ma arkaysa processed food wax lagu dhahay Ingiriiska ay aad u soo badatay nafaqada yar chemicalkeedan waa laga yaabaa inay ku jirto laakiin midda iida ah oo beertii laga soo gurinayay waad garan kartaa maxaa yeelay wax lagu buufiyaa jirta oo sun ah looga reebaya cayayaanka iyo looga reebaya taas actually haddaad barta carcinogen way tahay laakiin middaas mid la eg baa Soomaalidana lagu tuhmaa waxaa ka mid ah xoolaha sunta la mariya anaga xoolo dhaqataan oo lagu duro ama lagu duro xoolo dhaqataan daawooyinka lagu duro xoolaha oo loogu talagalay in ma arkaysa in shilinta oo looga reebay la mariyaa jirto oo lagu duray sharciga dadka veterinary oo caafimaadka xoolaha barteen meesha maxaa ku qoran 3 bari in neefkaas
maalin caanihiisa la maalin ama la qalin karin ama la qalin karin laakiin hadda dii gaajadii iyo dadkii ninkii reer baadiyaha hadalkaas kama dhageysanaya maanta suuq marka marka ugu horeysana marka ugu horeysana suuq uu ka soo gada naftinkeeda habku u qasi lahaa wax baraya ma jirta gacmihii gloves iyo ma arkaysa wax inuu xirana laga yaabo asaga jirkiisa uu iskaga difaaci lahaa gacanta uu ku qasay iyo weelka uu ku qasay iyo neefkii uu ku mariyay iyo haddana cuntadii kusii cunaya biyihiina nadiif maaha iyakana waa saameys marka xoolihii waxa ingiriiska lagu dhaha one health xoolaha iyo xoola dhaqatada caafimaadkooda oo iswada dhexmilmaaya cudurro badan ayaa ka imaadaan kansarka keliya aan ahayn daawadaasna waxyaalaha laga shakiya waa ku jirtaa oo carcinogen level 1 ay ka mid tahay kan ala iyadana oo geedaha iyo beerta iyo dhirta iyadana lagu buufiyo iyadana sunta way qabtaa waa maasan tahay sidii wanaagsan uga jawaabtay su-aasha kale maxaa weeye qofkii maanta ilaaha naga qabtay lagu sheegay kansar shayga u koowaad maskaxdiisa soo galaysa maxaa waa dhiman doontaa yes kansargan ma la daaweeyaa qofkana waxaa maqlaysaa muxuu stage 1 a jira level stage 2 a jira ama stage 4 baa jira oo qofka loo stage 4 hata istaal ha geenina qofkan waa macnaha tiisa gashay macnaha dad badan waxaa u aaminsan cudurkan kansarka hadduu jirkaada laga helo inaa sii dadaarmayso daawo ma leeyahay oo ma la daa dadka bogsaaday oo ka baxay oo maartay oo ka caafimaaday ma jira mana daawona ma qaba waa su'aal aad u wanaagsan oo aan rajaynaya dadka ku inay isweydiiyaan maalin walba aniga khusuusan maalin waa la weydiiyaa su'aashaas cudurkan kansarka horta hal cudur ma aha cudurro badan waaye kansar waa ereygaasna markii la tafsiiro macnaheeda waxaa waaye unugyaal isu imaadeen oo jirka ka mid ah hal meel ku korayaan difaaca jirka iyo wixii ku intay ka dhuuntaan nafaqadii dhiigga ka qaadanayeen oo saa ku korayaan oo weyneynayeen marka naasku ka soo bixi karaa dhuuntu ka soo bixi karaa maskaxdu ka soo bixi karaa sanka gadaashiisu ka soo bixi karaa afku ka soo bixi karaa xibin oo kansar uu ka soo bixi kara malaha jirkan lafta naftinkeeda dhiiggan waa labada weyn kansarka laba qaybood loo kala qaybiyaa midna waa mid unugyaal oo markay soo baxaan bur ahaan noqonayeen kuwana waaba liquid tumors baa la dhahaa dhiiggay ku dhex jiraanba dhiiggi naftinkiisi oo dhiigga gudubnaa oo inta maanta lagaa shubahay haddaa la dhex fiiriya unugyaashiisa kansar isu bedeli karaan marka dhiiggana waad garanaysaa wuxuu qaadaa infectionku kaa reeba nafaqada jirka isaga qaada oxygenka isaga qaada xinjirta dhiigga ka mid tahay haddii kale waa dhiig baxaysaa kuwii ku dado cudur gala intaan ka hadlayaa dhumi marka waxaa arkaysaa qofkii dhiiga lagu shubay uu ka dhamaanaa oo lagu shubaya oo ka dhamaanaya marka calaamooyinka lagu gartay ka mid tahay kansarka dhiig laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxaa waaye kansarka burooyinka kansarada laba ay kala baxaan marka maanta waxaan ka hadlaynaa kansarka burooyinka marka saa markaan hadda u sharxay qaybta u kala baxay asaga wuxuu yahay ma la daaweyn karaa taas waxay ku xiran tahay stagekii ama marxaladda uu ku imaado qofka waana su-aal soomaalida aad u jecel yihiin takhtaare stageka maraya wax kale inay ogaadaan maalinta ay ku imaadaan wax kale iyo daawada iyo cudurkii naftinkiisa waxaa uga muhiimsan stageka uu maraya waxaana moodaa 4 haddaad dhahdo qofkii in laga samray marka taas rabo inaad dadka jahil bixiyo stageka koowaad 2 3 4 takhtariinta waxaa loogu talagalay inay saa u kala xisaabaan qofkan oo takhtarka aan ahayn asaga kansar ku dhacay ama waalidkiisa ama walaashiis ku dhacday oo isbitaalka imaaday hal su'aal aan rabo inuu takhtarka weydiiyo doctor cudurkan intuu ku jiraa saameyn sidoo ilaahay naasku ka soo baxaan dhan ama dhuuntu ka soo baxay waan fahmay meeshaas uu ka bilaawdo miya oo meeshaas laga arkaa good intee kale ku firaara meel kale uu gaaray ma jirtaa lafta miyuu gaaray beerka miyuu gaaray sanbabka miyuu intaas bas in takhtarka la weydiiya sax 2 iyo 3 iyo 4 say Soomaalida u fahmayaan ana waan ka saa waxa waa stage 1 waxay aaminsan yihiin kii ugu fiicnaa yahay afarna kii kama dambeystay laakiin taa iyada qalad waa in saa loo fahmo stage afaraad oo kii koowaad camal loo daaweeyaa jira dadka ma kasaayin marka waxa way waxyaalaha informationka qaladka ee dadka ka jira stage 4 joogan oo la isbitaal hageenin isbitaalka bata ma aadayn marka isbitaalka dad imaata waxyaalo badan lagu qaban karaa cudurkan adis sidan go'aanka ka gaartay qalad waaye takhtarka inuu go'aanka ka gaaro uu ku fahansiiyo adigana oo su'aal aad weydiisto takhtarka aad ka bogota wixii loo qaban lahaa uu ku dhahaa okay 4 week laakiin cudurkan fooda cudurrada kale oo foog oo cudurka kansarka ma aha hadda fiiri kansarka oo beer aan dhahna oo ku jira kan dhiig halis waaye sida loo daaweeyo kan kala fiiri stage ma qaba ka asaga cudurka dhiigga gala kansarka daar aan tilmaamay labada qayb burooyin iyo dhiig u kala baxso kuma dhin kaas asaga stage ma qabo qofka Soomaalida uu ku imaado stage-ka uu ku dhaca waran
kama jawaabi karaan anaga marka waxyaalaha waxay kamid tahay information badan oo qalad oo loo fahmay ayay kamid tahay si loo daaweynaa waxaa loo daaweyn karaa stagekii aan sheegayna ku xiran hadduu kii koowaad iyo kii afraad ka soo qabo saan sheegay meeshan miyuu ku egyahay mise meel kale ku firaaray hadduu meesha ku egyahay ama waa laga jari karaa waa la qali karaa ama cirbad baa lagu siin karaa ama waa la gubi karaa oo intaas saddexdaas waay marka faahfaahin dheer ma sii galaya because waa information oo complex waay guud ahaan isku soo duduub haddaan ka hadlo waxaa waaye cudurrada kansarka wuu jiraa marka lagugu sheego waa arrin aad looga naxa taas waa macquul familiga iyo bukaanka way ka wada naxayiin laakiin waxaa sax ah sida wadada saxda waxaa waye dhakhtarkii ku takhasusay inaad aada dhakhtarinta isku mid maaha qof baa waxaa arkaysaa gaas laga daaweynaya weligiis intaasoo sano kaniin iska cunaya isaga galaasaa qabtaa lagu laabana marka dambena wixii gaaskii wax ka weynaada oo kansarka u eg ayaa laga helaya marka waxaa fiican ka hortag fiican iyo wixii waayagelintii iyo ayaa ka xun wadanka iyo dadka iyo soomaalida khaasatan marka cudurka waa la daaweyn kara ilaaha daaweyn kara marxalooyinka stage 1 2 3 4 sida soomaalida u fahansan yihiin maaha 4 waa la daaweyn karaa 3 waa la daaweyn karaa 4 la daaweyn karaa jirta طبعا si saxna waa jirtaa 4 oo meesha ugu dambeysay waxa laga qaban karana waa jirta laakiin go'aanka waxa fiican qofka professional kana ku sheega marmar waxaa jirta daawadii ay cudurka ka xun tahay oo qofkii hadda in faraha laga qaado hataa ay u fiican tahay laakiin Soomaaliya tawan guda gali karnaa cirbadaha oo lagu duro dadka oo chemotherapy la dhaha oo kansarka lagu duro jirka kansarka lagu daaweeyo saameyn badan jirka ku leeyihiin timahaas daadanayno aad looga cabsaday kamid tahay laakiin maanta hadaan ku dhahay ma aaminaysaa timahaas waxay u daadanayaan haddaad fahanta iyo qaabkii kansarkan cirbadan lagugu diray u shaqeyn haddaad fahanta waad fahmi waana raalli aad ka noqon wayna kuu soo baxayn timahada waxay u daadanayaan haddaan sharxa kansarka waxaan ku dhahay burada unugyaal isu imaadaan oo korayaan oo nafaqada jirka qaadanayaan oo bararayaan weynaanayaan waay kan naaska kasoo baxa kamid soo yaraa bil ka dambe usii weynaan intuu nafaqa ka helaya dhiigoo ka qaadanaya xididoo yeelana oo dhiiga kasoo jiidanaya camal biyaha so waxaa dhici karta marka cirbadii marka lagugu diro oo cudurkii waa la confirm gareeyay kansar waayo oo lagugu bilaabo soo maha waxaa yes waad ku xanuunsani timahaas way daadanayn inkastoo daawooyinka ku dimaha qaar baa keenaan sababta u daadanayn waxaa waaye timahaada iyo cidiyahaada waxay ka mid yihiin unugyaalka jirka oo haraka koraan timahaada fiiri maanta aad xiiraysaa beri way soo baxayin macnaheedu waxaa way korahayaan iyaga naftinkooda inkastoo nidaam sax ay u korahayaan kansarka isagana wuu koraa laakiin nidaamkii timaha oo kaleeto iyo cidiyahoo la rabay si fiican tartiib inay socdaan uma soconaya ilaa cudur waay wuu iska koraa marka control la-aan kansarka lagu sheega saasa laga wadaa so cirbad marka lagugu diro unugyaalka jirka kuddi oo haraka koraan kuddi wada dhimanaya ilaa kansarka ka mid ah so kansarka aad u jeeday laakiin unugyaal kastoo iyadana fast dividing cells la dhaha timaha cidiyaha ka mid yihiin cidiyaha naftigooda way ramadoobanayaan timihii waa daadanayaan laakiin timihii cudur kuma jira way is hagaajin karaan hadhow dib u soo baxayn but kansarka repairgiisa waaba cudur waaba ku jira marka hore so is different marka saa in loo fahmaa fiican khaasatan tima kaa daateen cudurka ka weyn ilaahay kugu riday aniga uma arka inkastoo dadka kale ay markaysa timaha muhiim ay u arkayaan cudur ka weyn baa lagu daaweynaa wuuna kuu soo noqonaa lagu dhahay markii cirbada lagaa joojiyo timihii bay soo noqonaa marka saa in loo fahmaa fiican waa maasanta ilaahana naga qabto soo hadda waxaan leenahay waa la daaweyn karaa stage group ha noqdo waxa ku xiranta un asaga siduu uu yahay su-aasha kale waxaa weeye waxaan arkaynaa dad badan in lacag loo aruuriyo wadanka laga bixiyo India la aadiyo anagoo og inaan weli qabnaa xaruunya lagu daaweeyo kansarka oo Gaaris ka mid tahay Embu ka mid tahay Mombasa ka mid tahay iyo Nairobi ka mid tahay may kula tahay dad wax anaga istaaladana ay qaban waayeen xarunyahan anaga oo cancer center Gaaris oo kale wax ay ku daaweyn wayseen oo dadka ay dibadaha oo la aadaan miyaa jira ama dadkii ba iska jecelaystay inay maartay India aadaan yes so 5 sano ka hor wadankan Kenya dib badan ka jiray 5 sano aan ku 10 sano ka hor hata dhakhtarintii oo kansarka ku takhasuseen aad bay u yaryihiin hadda way yaryihiin laakiin sidoo hore way dhamaan xaruntii lagu daaweynay kansarka Kenya aad buu u yaraa scan hatta marwar loo aadi jiray jirta India hadda scanka loo aaday 5 xarun oo Nairobi gudaheeda ayaa bixisay dabkii loo aadi jiray ama cirbadaha casriga loo aadi jiray oo chemotherapy ama immunotherapy waxa loo aadi jiray kudi Kenya waa laga helaa
marka taariikhdan intay ka imaato oo dibadda saa loogu jecel yahay dadkii ay kalsooni la'aan miya ma takhtariintii yar qof kaloo la daaweeyo si fiican ugu soo reystaa u sheekaya qofka inta way keentaa hadda aniga waxaan ku dhihi lahaa sida hore Kenya cudurka xarunta Kenya xarunyaalka Kenya ku yeelaan aad bay u horumareen gobolka markii la dhaho wadamada hadda noo dhow oo geeska Africa Tanzania Uganda East and Central Africa markii la dhaho dhaxaadka Africa ilaa iyo galbeed waqooyi Africa markii la dhaho Kenya horumar weyn bay gaartay waxay la tartamaysaa wadanka Masar oo kor ah iyo waqooyiga iyo waxay la tartamaysaa South Africa oo koonfur marka Kenya number 3 ay soo galaysaa xarunta Africa marka la kansarka sidii markaysa qalabkiisa iyo takhtariintiisa iyo caasi meeshada la maray dabcan idoo sida tahana dadkii qaar waxa laga yaabaa inay go'aansadaan familiga iyo wixii markay tashtaan ma yana ka san kuma kalsoonin waxaan aadaynaa India raqiisan miya ha taasna dib ma laha maya sidaada banaanba horta bukaanku wuxuu xaq u leeyahay meeshuu rabo asaga iyo sidoo rabo in loo daaweeyo dadka badan Soomaalida ma fahansana ninka bukaanka xaq buu leeyahay familigan u talinahay xaq ka weyn uu leeyahay asaga la rabo inuu go'aan ka gaaro laakiin maadaama anaka dhaqan ayna ahayn wadamada galbeedka fiiri bukaanka la wareysana wuxuu wiilkiisi aabiisata takhtarku wuxuu dhihi aabiin la soo Soomaalida waxa la soo tashta qalad waa ha familiga inta ma arkaysa dhaqaale waxa inay ka tashtaan la rabo laakiin daawada go'aanka takhtarka inuu gaaro fiican ma bukaanka inuu gaaro fiican asoo la tashanaya takhtarkiisa sida go'aanka asagana oo uu gaaray oo bukaanka iyo takhtarkiisa isla gaareen familiga inay marka India la aadayo xaq baa loo leeyahay qofkii ku qarash ahaan ka hadalna qarash ahaan wallahi India iyo Kenya loo daabay mid ka raqiisan oo maya di isku mid ma aha Kenya horta cudurka ku xiran tahay qalliin haduu yahay waxa laga yaabaa inuu xagga ay qaaltahay laga yaabaa laakiin cirbadaha iyo dabka oo loo aadayo India inta isku baa xarunta Garis baad laga helaa hata waxa la iska daa Nairobi iska daa marka Mombasa iyo Nakuru iyo Garissa ayaa xarunta oo hadda casriga oo 4 sano hadda furan oo wadanka dawladda Kenya ay dhistay ayaa kamid ayaa jirta intaasna qarashkooda wax hata Nairobi iyo hata isku mid ma aad bay uga baajawan tahay marka India la aadayo waa arrin waliga jirtay taariikhiyan waaye baahi jirtay oo loo aadi jirtay hadda naftankeeda dadku way aadaan qofkii raba laakiin cudur walba ka India loo maada qaar xagga tagayn qab intii loo suubin la inta loo soo suubin wax ka bedel ma jirto maxay cudurada si loo daaweeyo adduun weynaha takhtariinta isku mid waa cilmiga qalabka umba loo kala yiraahdo way daaweynta kansarka qasaqal u yahay oo qofku markuu saa ugu dhaco qaaraan loo aruuriyo lacag loo aruuriyo ma la raqiisin way waa nasiib dar and I think waxa waaye Soomaalida waxay qaal ugu taan ku sheegaa taas arrin oo aad aan u fahansan yahay waxa ka mid ah Soomaalida horta caymis iyo health insurance waxa la ma baqaan dhaqan bano ma aha qofkeen intuu macnaheedu waxa dad muslimiin ahna nolosha iska baashaalna cudur ana ka masugna cadaanka asaga retirement-kiisa iyo health package-kiisa kol ruu ka shaqeey marka maalintii ku soo booday ay noqotay sheekada oo kansar laga helay aminkiya insurance-ki caymiski oo caafimaadka aminkii qofkii laga yaabo inuu diiwaan geliyo in hor uga shaqeyn waysa laga yaaba daawadana degdeg waay marka iyadoo sidaa hadda Kenya caymiska caafimaadka SHA la dhaha waaga hore NHIF la dhigi jiray kansarka wax walba ka bixiya iskaanka lagu dhufanayo stage-kaada lagu ogaanayo uu ka bixinaya cadka hilibka laga qaadayo uu ka bixinaya cirbada lagu darayo uu ka bixinaya dabkana uu ka bixinaya dabka waxa laga yaabaa inuu ka wada bixinin oo adiga top up wax ku dar lagu dhaha laakiin wax uu ka bixinaa marka caymiskaas I think Soomaalida ma fahansana dhaqanna nooma diinan ahaan fatwa badan baa jirta oo dad qaarkood oo ma arkaysa aaminsan inay waxa tahay tawakkul la'aan iyo ay tahay oo iska jirta marka taasna kulay culimada diinka ka hadli karaan insha Allah su'aasha kale weydiina waxa weeye intaad soo daaweysay cudur kansar dadka Soomaalida ku iimaanay inta u badnaa kansar noocma ugu badan su'aal aad wanaagsan Soomaalida horta cudurrada kansarka qabiil ma qabaan laakiin adduunweynaha markaa fiirisay dadka inta midab la qaba Asiaanka cadaanka iyo Africa iyo South America loo kala bixiyo waxa arkaysa Africa marka la dhaha waxa noogu badan African ka hadlaan Kenyan ka hadlaan Soomaalidan ka hadlaan Africa marka la fiiriyo kansarka ugu badan labada ugu badan waxa way rag iyo dumarka marka la kala qabta dumarka waxa u badan kansarka naaska gala iyo kansarka gala minka afkiisa
cervical cancer baa la yidhaha iyo breast cancer labadaas ugu badan dumarka raggana waxaa u badan qanjarka ragga oo la dhaha prostate-ka oo calaabo kaadida wadada marta labada dhinac ka jira marka kaadida ku xirma qofka ilaa qanjarka bararaya iyo bariyahan hadda Kenya markaa fiirisa ragga waxaa ugu badan prostate-ka cancer-ka oo qanjarka ragga ah iyo dhuunta ma fahmaysa ama colon cancer mandhicirka cancer-ka mandhicirka marka dumarka Kenya waxaa ugu badan sidaan ku sheegay Afrika la mid waayo naaska iyo minka laakiin taa iyadu waxa waaye dhaatada hadda Kenya aad bay u dadaalnaa research-kii waxaan ka suubinaa laakiin wili waxaan aaminsan yahay cudurkan dhuunta 5 sano hadda ka dambe inuu wadanka idil u badnaan doono rag iyo dumarba waxaana saa u leeyahay waxa waaye hadda markaa fiirisa inta qof uu laynaayo asaga hadda waxa waaye dumarka markii Kenya la fiiriyo cudurka ugu horeeya maxaan ku dhahay waa naaska waxaa ku xiga minka afkiisa waxaa ku xiga kan dhuunta dumarkii uu number 3 ka yahay ragga waa actually number 2 waa qanjarka unbaa ka weyn ka horeeya qanjarka nin walba nin rag uu ku yaala qanjarka so marka by virtue of adiga aad tahay nin dumar nin rag daaweyn agaartay waa laga yaabaa inuu kugu dhaco qof walbana kuma dhaco laakiin number 2 ragga waa dhuunta marka cudur ragga number 2 ka ah dumarka number 3 ka ah dadkiina cudurkiina hadda uu saad u sii badanahay 10 sano ama 5 sano ka dambe waxa arki doontaa in markaysa isbitaalada lagu baari lahaana ay sii badanayaan marka detectionkiisa kor u kici doona waana cudurka ugu halisan uu noqon doona aaminsan anaga hadda Soomaalida ku imaata dhuunta u badan so Soomaaliya hadan guda gala cudurka u badan dhuunta waayo head and neck cancers baa lahaa minka afkiisa uu ku dhahay dumarka Kenya number 2 waayo Soomaalida uu ku yar yahay waana arrin aad la yaab leh marka taasna waan fahansanay wuxuu ugu yar yahay maxaa yeelay minka afkiisa cervical cancer dumarka gaalada iyo muslimiinta ama Soomaalida wuxuu ugu yar yahay waxaa kamid nadaafada yes laakiin cudurkaas waxa keen horta aan ku sheegaya waxaa la dhahaa infection la dhahaa HPV gaas waxaa keena waxyaalo badan way keenaan laakiin 90% waxaa laga qaadaa galmada weliba galmada oo markaysa oo laga taxadirin oo HIV ga camal sida halis ugu noqon karta oo markaysa oo qof walba iyo qofka markaysa lamaanihiisa badan yihiin ayaa horta dhacaankaas markuu ku daara ayaa HPV infection kii wuxuu viruskii wuxuu daarayaa minka afkiisa marka Soomaalida hadii anaka kulay diinta Islaamka na yeelaysa nadaafada na yeelaysa muslimnimada na yeelaysa qofkii oo markaysa xagga galmadana kulay hal ila qof oo kulay qof walba waxa u maleynaa qofka uu guursada ayuu ku egyahay in laha oo minka afkiisa ugu yar sidaas waa sax fahansan anaga kan dhuunta laakiin waa midka naaska naftinkiisa dumarka Soomaalida marka la fiiriyo wuu jiraa laakiin aad uma badna marka waxaan ku dhahay Kenyaatiga kale oo Soomaalida aan ahayn dumarkooda naaska ayaa u badan minka ku xiga anaka minki gabdhaheena oo Soomaalida cudurkaas wuu jiraa laakiin ma badna aad buu yar yahay waxa waaye kuwa ugu yar buu ku jiraa naaska laakiin naftinkiisa gabdhaha Soomaalida waa laga helaa wuu yar laakiin sida kale uma badna ka fiirso cudur kansarka saani u arkay ragga iyo dumarka Soomaaliyeed ragga u badan arinta sax ma wallahi وانا صح وانا غلط maxaa yeelay sax hada la dhaha horta kansarkii ku xiran tahay inuu rag iyo dumar lama fiirinayo type of kansarkii ku xiran tahay hadda marka cudurka la yaab kale hadana aan ku soo noqdo kan dhuunta waay gaarisa research-ka aniga aan ka suubiyay wuxuu tusay 50% iyo 50 inay sameyn yihiin ninkii naagta dumarkii ragga dhuunta laga wada helay waxa arrin la yaab leh waana is weydiin kartaa maxaa yeelay cuduradan wadamada kale markay ku dhacayeen dhuunta sigaarka iyo tuwaakada qofka cuna iyo khamriga qadka bay ku dhacdaa laakiin Soomaalideeni ragyaabo khamriga iyo sigaarka ku yariyaan jeclaan marka laakiin way qabaan haye dumarkii oo khamriga iyo sigaar cabaynin maxay u qabaan soo marka wuxuu rag iyo dumar looma kala qaadi kara hadda waan kala qaadana cudurkan dhuunta horta ma kala qaadahay labadaba ku dhacaa haddana haddaad rabto inaad uu kala badan yahay aad rabtana cudurkii ku xiran tahay maxaa prostate cancer hadda qanjarka dumar ma ku dhacaa iyaga qanjarka ma qabaan sidoo kale ladaalika qofansidaha ovarian kala ovariska oo kumaha dumarka qaba rag ma qaban cancer nagu gala marka I think uma maleynaa inay saa loo kala qaadi kara caruurta ugu yar caruurta waa ku badan yahay caruurta kansarka caruurta asagana waa saan ku sheegay jismi iyo qaarad ma kala laha
cudurro oo khusuusan oo kansar oo ilmaha ku dhacaana jiraan waa la aqaanaa kuwaas waxaa ka mid ah kelida mid ka soo baxa caloosha cunuga bararaysa waxaa ka mid ah ishan idil hal mar soo bixi retinoblastoma baa la dhahaa gaaris aad baan ugu daaweynaa waxaa ka mid ah ilmaha maaragtay dhiigga cudurka dhiigga kansarka dhiigga aan ku sheegay leukemia la dhahaa ilmaha aad buu ugu badan yahay marka Soomaali ahaan ilmaha xaggooda wax khusuusan ma jiro waa sida adduun weynaha unbay ka sameeyeen ka hortag ma leeyahay ama waxyaalo oo ka taxadiri karo shakhsi ahaan so kansarka waa taxadir uu leeyahay inaad cirib tirin oo taxadirkaada daraaddeed cirib oo kugu dhicin kuwa aad ka gaari karta iyo kuwa aad ka gaari karna jiraan saan kuu sheegay hadda midkan dhuunta horta aan dhahna kuwa la garanayo wixii aad suubisay daraaddeed u imaadana ka hadlaya waa saan kuu sheegay hadda kansarka sanbabka ka mid ah laakiin dad oo sigaar aan cabin dadka aala maxaa la aaminsan yahay sigaarka duka 40 sano sigaar hadda cabaysay maalin walba 2 baakid aad cabaysay qaadi sigaar maalin walba aad cuna jirtay kansar haduu kugu dhac la yaab ma leh maxaa yeelay waxaad cunay isku diiwa waxyaalaha kansarka inay ka mid tuwaaka hadda weliga cuni jirto carabka oo kansar ka galay ama qaad weliga cuni jirto carabka gaas kansar ka galay idan la yaab ma leh meesha ka imaato waan dareemi karnaa marka hal kansar baa jira adduun weynaha hadda in la ciribtiro la isku dayayo dadaal daraadiis haddaad ka qaadata taas waxaa waaye cudurka dumarka oo minka afkiisa daaraan ku sheegay Soomaalidan uu ku yiraan ku dhahay gaaladu aad ugu badan yahay Soomaalidana dabcan way jirtaa laakiin way yartahay kaas maxaa guul looga gaari rabaa WHO xarunta ururka caafimaadka adduunka waxay isku dayayaan inay 2030 markii la gaaro cudurka in la ciribtiro waa halka kansar la rabo xoog in la saaro maxaa yeelay waxa la ogaaday viruska daahir aan ku sheegay galmadu ku imaada la dhahay hadaabad qabin maba kugu dhacayo cudurkaas asaga markii loo reebo ma galmada la yareynaa ma waxa waaye vaccine talaal baa loo hagaajin rabaa talaalkana sheeko kale hadii Soomaalida kulli wax kale ay ka aaminsantahay waaye marka waxa hadda la isku dayahay HPV vaccine in la hagaajiyo talaalka oo viruski minka afkiisa kansar ku keenay in la hagaajiyo kaas gabdhihii iyagoo yar oo wili waqtiga la guursan lahaa galmoon lahayn la gaarin oo difaac jirkooda uu sii gala si faa'iido hatta oo ma arkaysa oo Google dhaafaynin ninkeeda naftinkeeda markay isu tagayaan ilaa viruski waa galmo ku imaadaan ku dhahay xalaal iyo xalaal laamba laakiin jirka duu vaccine ku sii jira sida cudurrada kale oo vaccine loogu baabi'iyay marka saadaraad hadda laga fikiraa marka kaasa taxadir u baahan sida kale hadii kansarada kale iyo kale taxadirkooda horta waxa ilaahay ku shaqale laakiin taxadir inta adiga awoodaada dad ma arkaysa almiitaysa cunto nadiif aad cunta qaadi sigaar aad cabin khamriga aad cabin galmooyinkii oo cudur aan ku sheegay keenayeen viruskaas oo minka afkiisa ku keen karaan inta adoo soo basan waliba ku dhici kansar marka dadaal waa nolosha dadaal laakiin ha fadhinin meeshaas adoo maalin walba ka fikiraysa kansar I think noloshaada in you have to live your life noloshaada hor u soco kid dadaal ilaahayna tawakkul saara ma santa mid ma arkaysa Soomaalida aan ku arkay dhaqanka Soomaaliyeed inay kulli horta bukaan socodeen yes oo qofku dhahaya markaa weydiisay meeshan goormay ku xanuuntay oo leeyahay meeshan sano ka hore ama anoo yar ilaahay xanuun jirtay oo markay xanuuntan uu xanuun baabiye uu qaadanay waan arrin maartay aad maartay misuse u isticmaalaan Soomaalida xagga maartay painkiller sax qofka ha arkaysa bil idil meel xanuunayso laakiin maanta uu daawo xanuun baabiye qaadanay soo markuu isbitaalka taga oo la weydiiyo goorma xanuunku kugu bilaabo oo qura xanuunkan sanadooyin waan qabay waan arrin maartay aad loogu xumaado sax waxa u sheegay taas ida maalin walbaan arkaa waana su'aal aad u fiican for example hadda cudurka dhuunta maanta cudurka dhuunta baan miisaal soo qaadanayna maxay la kaasay Soomaalida aad u faansan yihiin cudurkan dhuun qabadka hadda qof walbo oo xarunteena imaada ama clinic Nairobi aan ku arka wuxuu ku leeyahay 2 sano ay dhuuntan tartiib isoo xirmaysay laqitaanka ku dhawaay hilib ma cuni kara bariiski ma cuni kara aan baastada ma cunaynin aan lufti ya dhibaysada biyo uu soo dhaafay inta markaas uu imaanaya marka kulay duruuf inay u geeysaa laga yaabo oo lacagtii isbitaalku ku aadi lahaa iyo cilmigii iyo wacyigelinta inuu haynin marka ninka bukaanka lama eedahay waxa ilaaha ku shaqale laakiin meeshaas waxaad ka fahmaysaa Soomaalida in dhaqan ahaan ka hortag iyo isbitaal la aada iyo caafimaadkaada la socdo iyo jirkaada isbedelayo waxa
ma arkaysaa laga soo fahma horta dhaqan nooma aha and I think inaan taas inaan bedelno waayo alaaba kansarka xaggiisa wax walbo dabcan oo jirkaada ku dhacana ka shakisa ma aho waswaas isku rido dhakhtar u tagta qasab maaha laakiin wixii oo aad ma arkaysaa uga duwan noloshaada isbedel weyn ku keenay sida laqitaanka camal wax qarsoomay maaha inaan la fadhida ama meel buro kaaga taala la fadhida burada naftinkeeda buro walbana kansar maaha laakiin qaar oo weynaanayaan maalin walba sii socda la fadhida ama dhuuntan baa maaragtay sida cudurrada goytaaga la camal intan oo la soo ekaaday wallahi yaabaysa qofka intan muxuu isbitaal u imaan waa dhaysa marmar waana fahmi karaa marmar inuu isbitaal u dhaweena laga yaabaa reer guuraa inuu yahay laga yaabaa inuu lacagtii iyo qarashkii iyo dhaqaalihii uu haysanna laga yaabaa marka eed ma aha laakiin wacyigelintii iyo inay wax walba isbitaalkii waqti fiican la imaado wixii la ogaada I think way iska fiican tahay umalayna laakiin taa iyadana waxay ku xiran tahay wax la dhahaa social determinants of health waxaa shay baarista waxaa la ogaaday nin walba adin nolosha maanta meeshaad ka maraysa iyo caafimaadkaaga isku mid waay haddaad meel oo slums oo ma arkaysaa guryo nadiif iyo biyo nadiif ah haysani caafimaadkaadi waxyaalaha waxaan reality ku waxaan adig maba ku aha muhiim maanta waxaad ka fikiraysaa saad cunto ku cuni lahayd qutulyoonkaadi marka dadkii wadanka markuu dhaqaalihiisa ka dadaala oo dadkii iska danyarta naftinkooda lacag fiican ay helayeen maalin walba guri fiican ay degan yihiin biyo nadiif ay helayaan ilmahooda iskuulooda akhrisanayaan iyakii caafimaad ay leeyihiin markaas tan waa la hilmaamaa marka wixii yaroo ka soo baxay marka isbitaal oo loo aadi karaa marka waxay ku xiran tahay dhaqaalaha qofkana iyo waxbarashadiisana iyo cilmiga intuu ka gaaray iyadana waxaan u malaynaa caafimaadka aad ay u saameysaa su-aasha u dambeysa waxaan rabaa inaan noo sheegto ama noo sharaxdo qofkii muxuu imaaday istaalka waa la baaray waa lagu helay bal helitaanka la helay ilaa daawada meesha u dambe uu ka dhamaysanayo oo la dhahaya naa qofkan waa cancer free uu ka baxay bal safartaas bal noo sharax waa processka la mara kansarka ilaa iyo uu dambe markii laga helo ilaa iyo uu ka baxay ama laga daaway lagu dhahay waa su'aal aad u wanaagsan waayo oo qof walbana oo kansar qaba ama familigiisa inay bartaan ee ogaadaan oonan baahida weyn ay u leeyihiin maalinta clinic ay kugu imaanayeen waraaqihii wixii la imaanayeen la weydiiyo waay marka bada waxaan jeclay dadka inaan si af Soomaali oo la fahma ugu sharxa kansarka andhahna kan dhuunta dana u soo noqono calaamooyinka aad qabtay 2 sano cuntada dhuunta way sii xirmaysay hadda candhuufta ku dhibaysa bas waad imaanaysaa ma dhuuntii wax baa ku dhex jira Soomaaliya marka number 1 step-ka ugu horeeya in la ogaado horta step-ka ugu horeeya waxa marka bayb oo afka camera ku wata dhuunta laga gelinayo lagu yara suuxinayo waa la gelinayaa ilaa dhuuntii meesha la raadinayo waa la arkaa baalkii waa mar waynaa baybka naftinkiisa afka laga gelinayo ilaa candhuufta waa mar la mugta bas meesha marka la cad hilib laga soo qaadaa yaalkaas laboratory la geena shay baaris loo fiirna dhakhtarkii report uu soo qoray wuxuu dhahaa cancer waaye ama cancer ma aha marka cancer waaye hadii la dhaha marxaladda labaad aad marka confirmed waaye waana meesha ugu naxtin badan cudurka waa laga helay waa shaki kuma jiro waa lagu dhahaa maxaa la suubinaa next waxa stepka labaad oo ku xiga waxa waaye in scan lagu diro oo stagekiisa loo ogaado sheekada Soomaalida ay jeclaan ku sheegay kii koowaad meel labaad 3 4 marka waxa la fiirinayaa ma meeshan kale ku jira mise kilido miyuu ku firaaray beerka miyuu aaday sanbabka miyuu aaday ku dawal fiirna tii marka insha Allah qofkii aan dhahna bal meel kale kuma firaaray inta basuu ku egyahay so marka 2 3 4 gaas iska daa adiga waa 1 ama waa 4 ka soo qabo fahmay 4 maxaa ku dhameel ka marka uu raado so haduu meesha ku egay dhuunti marka daawada lagu stage waa la ogaaday marxaladda saddexaad waxa waaye stepka saddexaad waxa waaye inay la ogaado si loo daaweyn lahaa ma la qali doonaa cirbada lagu siinaa chemotherapy-ga sheegaysay ma waxa lagu siinaa dab mise waa la isku qadaraa go'aankaas dana dhakhtarkii ayaa ku sheegaya go'aankaasna uu dhakhtarku wuxuu ku gaaraa intay la eg tahay tumor kansarka intuu la egyahay xidada miyuu haastaa meel oo laga jari kara miyuu joogaa meel laga gubi kara muu yahay haddii la gubo dhib weyn ma imaanaya cirbada ama ay ka fiican tahay ada fikradaas markuu isku dardara ayuu kuu sheegaya inaa cirbad ka qaadanaysa inaa dab lagugu daraayo ama inaa qalniin lagugu daraayo ama inaaba saddexdoo la iskugu kaa daraayo aaba kala marmarba ha ahaadaanin markaa ka damba waa lagu fasaxayaa cudurkii waxaa leeyahay 2 bilood soo noqo aan aragna bal iskaankaan ku celin haddana inuu weli ma arkaysaa meesha joogay inuu haddana meel kale ka firaaray
waa la ogaanaa haddana ka dambe marka cudurkii alxamdulilah haddii uu kaa baxay adigana intaa cirbada iyo daawada qaadanaysa isbedel weyn jirkaada ka dareemaysaa dhuunta hadday xirneed 3 ilaa 4 cirbad marka ku dhacaan isbedel weyn inaad dareenta la rabo dhuunta waxaa kala qagarta marka iskaanki wixii ka dambeeyana marka waxay noqon sanadka ku xiga 6 bilood bin iskaan lagu dhufto meeshii in adoo waxba qabin oo lala socdo haddana sanad ka dambe haddana iskaan kala suubisa ama 3 bilood ama 6 bilood inta u dhaxaysa marka wadada aad maraysa intaas waa ما شاء الله سيف عم بقول شرحي سؤال قدام بس Soomaalida waxay dhaqan u leeyihiin in qofkii marka la baaro dadkii familka jawaabta la soo siiyo inay ka qariyaan qofkii arrin badan dad badan oo laga qariyo oo qofkii la leeyahay ha u sheegina hatta lagu soo wacay cudurkaas qofkii laga helay laakiin ha u sheegina saameyn sidee ku yeelan kartaa xagga daaweynta qofka والله وأرين وآد أو تعجبوا يعني نفتن كيجا لكن ماشي كسوعتان فهمي كرا ودقن كينوا أنا جو حن آد ماركس شيء بدن كسوبي وحلا دها cultural based cancer care معناها إن مارينت كانسر داوين تيدا هذا جو دقن كاستعماليس وأنا أرين آد وأنا أكسوه معايا لغفك حدات فهمت اللغة ديسي دقن كيس فهمتي daawadii cilmigii wixii u sharaxda luqad u fahma adoo turjubaan uu ku maraynin markaas waa si fiican u fahmaysa Soomaalina asii taho waqtada wala kaftami kartaa qofkii marka dhaqankee kamid tahay waxaa naga dhaadhacsan anaga Afrikaanka idilna waa Soomaalida kala xamaa marka Kenyadan hadda Nairobi dan aan ka shaqeeyo bukaano badan markaysa familygooda la socdaan waa laga naxay ha u sheegan baa lagu dhahaa marka ani laba shay baan suubiyaa mar aan ka ogolaanayo haye uma sheegin aan dhahay iyo mar aan ka ogolaanina jirta laakiin sababta horta arrintaas meesha ka socoto waa fahmi kartaa waa dhaqanka waxa la leeyahay qofkan waan jecelnahay aabahayn waay hooyadayn waay walaashayn waay qof waa yeel waay waxa daa loo sheega shock uu qaadaya daawadii hada inuu diidaa laga yaabaa uu isku naxaya waa fahmi kartaa taasna ana marna waan ogolaadaa uma sheega laakiin still sida xaq xuquuqda uu kugu leeyahay bukaanka waxa waay cudurka oo ka daaweynaysa inuu og yahay hadduu ogeena waxaad ku daaweynaysa inaad fahansiiso marka marmar anaga shaqada way ugu adagta naftinkeyga laakiin marmar ay fududaho qofka ii imaado bukaanka waa nin dhalinyaro ah ama maamo oo aad u weyneen qof wayeel aan ahayn qof ooba akhristay qof rabo asaga inuu ogaado markaas familiga hadalkooda ma raacay bukaanka ayaa ka xaq leh bukaanka loo sheegay sababta markaysa iyo wuxuu uu qabo marka arrin oo maalin walba dhacdo laakiin anigu waxaan aaminsanahay waxay ka socotaa un xumaan kama ahe waa un jacaylka loo qabo qofka fikradiisa la ilaalinayo niidiisa Dr. Umar Abdulhamid aad iyo aad umahadsan tahay waqtigaadana siisay si wanaagsan oo nagu faahfaahisay arrintana waxaan aaminsanahay dad badan inay ka faa'iidi doonaan oo isweydiinayay oo baryahan wasaaskan u batay shakin u batay qofkii meel xanuunta wuxuu war kansar miya qofkii laana waa qabtaa markaas nolosha ugu dambeynaysa laakiin maxaa noo dhaadhacisay in maaragtay la daaweyn karo kasoo hortaga hadday noqotana hadee wax badan lasii qaban karin but adi informationka kulli waa information aan u baahnayn wacyigelin badanna waan u baahannahay dadka si fiican ugu sheegan oo qofku markay meel xanuunto yuu sii suga inta sanadooyin ay gaarto meesha markuu uu dareema inuu xanuunka uu usbuuc sii socdo inuu dhakhtarka u tago laakiin baryahan farmashooyin badan baa soo baxay oo dadka gadaan hataa weli dhakhtarin ahayn oo daawada sidii maaragtay loo qaadanaya maaragtay sidii maaragtay loo iibsanayo maaragtay sidii dharka oo kale loo iibsanayo ayaa baryahan horta aad u jirto baryahan qof arkay 5 cirbood 6 cirbood blood infection baryahan daawada suxan baan qaadanaa waana arrin maaragtay dhibaato weyn ay ka iman doonto oo dhinaca ministry-gana la rabo inay xooga ay saaraan kaasoo aad ka mahad celinayna meesha waxaad noo faahfaahisaa xaggee ka howlgashaa Gaarisa haddaad joogto iyo haddaad Nairobi joogto iyo qofkii rabo maaragtay inuu consultancy ahaan uu kugu imaado halkee laga heli karaa ama hataa maaragtay baraha bulshada inta laga heli karaa mahadsanid cali waxaa waaye aniga Nairobi waan ka shaqeeyaa qaybta oo MP Shah Hospital gaar ahaan qaybta cancer centerka oo MP Shah cudurrada aan ku takhasusana waxaa waaye cudurrada oo burooyinka dhiigga ma aha kansarka dhiigga ma aha burooyinkan kala baalaana dadka weyn maxaa yeelay waxaan u kala baxnaa anaga dhakhtarka daaweeya kansarka ilmaha yar iyo kansarka dadka weyn marka dumar iyo ragba cudurkooda kansarka waan ku takhasusay MP Shah Hospital oo cancer centerkiisana oo meesha Parkland Square la xarunta Nairobi laga helaa
qaybtan kaloo gaarisna bulshada Soomaalida waxaan u sheegaynaa gobolka waqooyi bari iyo meel kaleba in cancer center laga furay muddo 3 sano hadda ay shaqeynaysa wax walba oo gaaris Nairobi laga heli karana gubitaankii cirbadihii iyo wax walbana laga heli kara Nairobi oo laga heli kala gaarisa oo ka baac jaban tahay marka bulshada Soomaalida soo dhaweynina wixii ma arkaysa faafahin dheer u baahanna insha Allah information-kiga khadka laga heli karaa Umar Cabdixamiid dad qorto waad arkaysaa insha Allah rajaynaa thank you barnaamijkaana maanta intaas ku eegay aad u mahadsantiin waxaan Ilaahay ka baryaynaa dadka bukaanada oo kansarka u haya inuu Ilaahay caafimaad degdeg siiyo anaga kala soo harnayna inuu Ilaahay maartay naga qabto bal insha Allah Ilaahay baan ka baryaynaa ina maartay dhinac naga mariyo daweyshan kansarka aad u mahadsantiin